waayahay su'aashu waxay ku leedahay aan ku weydiinayo ratiga geela lagu daro magac buu leeyahay magacaas muxuu yahay cabdirashiid la yiraahdaa cabdirashiid la yiraahdaa kula wacan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeena xiisaha lahaa isweysiyo su'aalaha oo ah barnaamij toddobaadla isla markaasna su'aalaha aan ku weydiino bulshada qaybaheeda kala duwan halka naga daawanaysa waa channelka Suweyska Cayte bal aan aragno su'aalaha bulshada weydiino iyo sida uga jawaabaan barnaamijka Suweysi su'aalo wacan sababku u aragtaa hadaan su'aal ku weydiiyo ma xuma arka caada ka jawaabaya ka jawaabi kara waayahay su'aashu waxay ku leedahay gobol kamid ah gobolada Puntland oo shantiisa degmo ay ku yaaleen xeeb waxa weeye bosaas meeqa degmo ka kooban in badan maxaa kamid ah waxtooyada kale wax badan kamid ah kale bal hal iyo laba ka sheeg degmooyin degmada takada su'aasha kale waxay ku leedahay waxa sheegtaa degmo kamid ah degmooyinka Puntland oo 3 xaraf ka kooban degmo kalkacyo inta ka kooban tahay xaraf magaceeda kalkacyo ka kooban tahay saxaway afar waa maanaa waxa sheegtaa gobol shantiisa degmo ay ku yaaleen xeeb shantiisa degmo oo ku yaaleen xeeb waa gobolka bari intee degmooyinka saaran xeebaha waxa weeye qandada xaafuun ufeen xaafuun qandada bandaqaadin oo boosaaso ah iyo isuusuban gobol kamid ah gobolada Puntland oo shantiisa degmo ay dhacaan ama ku yaaleen xeeb gobolka bari san jeclaa ay bari degmooyinkiisa kulli xeeb ay ku yaaleen shan degmo miyaad gobolka shantiisa degmo xeeb ay dhacaan ama ku yaaleen ma garan karo taas ma wajidaan walaalahay تمام جدا ما بمقال صندق مو بري يعني بري waa u maleynaya bari oo gobol badan inta kale ma garanayo laakiin waayahay su'aasha kale aan ku weydiinayo waxay ku leedahay waxa sheegtaa wadankii ugu horeeyay oo Afrikaan ah oo diyaarad lagu duqeeyo waxaan u maleynaya wadankii waa Puntland ma u maleynaya Afrikaanka waa Puntland miya ma diyaarad waxaan u maleynaya inta aan dhalan ka hor noloshadaada intee ka soo wareegtay noloshada waxa ka soo wareegtay 12 sano 12 sano jirta 12 sano jirta waxa ku leedahay waxa sheegtaa gobol kamid ah gobolada Puntland oo shantiisa degmo ay ku taalo xeeb waxa weeye gobolka bari ay bari degmooyinkiisa kulli ma xeeb ay ku yaal maya qaar baan ku walayn laakiin kuwa xeebta ku yaal waa kuwee waa bayla waa meesha la yiraahdo degmada Baargal waa meesha la yiraahdo ceelaayo may laasqoray waxa weeye meesha la yiraahdo calawla waa meesha la yiraahdo xaafuun waa ku sheegay waa mahadsan waan ku dhawahay maxamed macalin xuseen magacaaga meeqa shibanaha ku jira meeqa shibanaha maya ma sheegi karo shaqalka farsoomaali ma baqaman farsoomaali ma baranba su'aal dhaqan aan ku weydiinayaa su'aashu waxay ku leedahay ratiga awrka geela lagu daro magac baa la dhahaa magacaas muxuu yahay taas waxa la yiraahdaa ratigaas aniga waxaan ilaahnaa qurbi eraana afmaymay hadii loo laabto qurbi baana gobol kamid ah gobolada Puntland degmooyinkiisa shantiisa degmo oo kulli wada ay ku yaaleen xeeb kulli xeebkooda yaalaan shanta degmo xeebta kooda taalo hal gobol leeyahay oo gobolka El ugu soo dhaweynaya barnaamijka Suweysi su'aalaha
haye maxaa la su'aalayaa magacaaga maxamed maxamed meeqa shaqal ku jira maxamed maya anigu waxba layma barin inta shaqal ku jira ma aqaanin xagee ka timid waxaan ka meel la yidhaahdo malka maraye baan ka imi waa kaa marka su'aalo inaan ku weydiiyo waxa weeye maadaama aan meel miyi ka timi su'aalo dhaqan aan ku weydiinaya marka rati miyina ka meel dhaxaan ka imi meel dhaxo miyi iyo magaalo maxaa u dhaxeeya تويسي سؤالها waa dhowahay cilmi axmed jaamac cilmi oo inaan su'aal ku weydiiyo soo arag diyaar baan u ah waaya su'aashu waxay ku leedahay gobol ka mid ah gobolada Puntland oo shantiisa degmo ay xeeb ku taal baa laga rabaa inaad sheegtid waa boosaaso degmooyinkiisii oo dhan maxay bay ku taal maya waxa ka mid ah ayl baa ka mid ah عفوا ما كمل لبدا waa garanaya waa ku dhawaay walaal macaan barnaamijka suwaysi su'aalaha abshir axmed wey abshir su'aashu waxay ku leedahay waxa sheegtaa wadanka ugu horeeyay oo Afrikaan ah oo diyaarad lagu duqeeyo wadankee ugu horeeyay oo Afrikaan diyaarad waa Congo wala baa maanay dhaweynaya barnaamijka suwaysi su'aalaha soo dhawaan waxa la yiraahdaa qayile magac kale ma yeeli waxa lagu bixiyay waxa la igu bixiyay xayraanimada la igu bixiyay tawaka marka xayraan maxaa ku magac kale waa xoogsaday waayahay su'aashu waxay ku leedahay aan ku weydiinayo ratiga geela lagu daro magac buu leeyahay magacaas muxuu yahay Cabdirashiid la yiraahdaa Cabdirashiid la yiraahdaa Cabdirashiid ma xoolo loo bixiyaa mise dadka loo bixiyaa waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka Suwaysi waan ku dhawaay walaal magacaaga Nuur Ibrahim Ali Nuur meeqa shaqal ku jira Nuur meeqa shaqal ku jira wiliga iskool ma soo galin koobde ma aqaan waxa shibnaa ku jira waxa shaqada ku jira maart ma aqaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waxa la yiraahdaa Kayso meeqa magacaaga shaqal ama shibana ku jira yaa shaqal iyo shibane وهو واحد موضوع مكتب يجي فكر عادي أنا وديني سالم سؤال بدال على أي رعدة برامج كسويس إيش سؤالها والله أنا بشير كلوه أيان لو إنا سؤالك ودي سؤالك عادي ما نوركا قبل كم إذا قبل هذا بنتلان وشنتي صدق ما يحب كويالين بالغار هبا إنا شيء شنتي صدق ما سؤال لأنه يا ممرني أيوة حاجة تو بربرائية بنتلان باكوين أنا بنتلان مياتري قبل كم إذا شنتي صدق ما أي حيبك يالان وبري واحد قندلا يحافونيو degmooyin anu gobolka laga rabaa ma gobol baa la rabaa inaan sheego waxa sheegaysaa gobol Gardafuul weeyde lada Puntland oo shantiisa degmo ay dhacaan xeeb ama ku yaaliin waa gobolka Gardafuul oo ku dhawaa walaal barnaamijka Suwaysi su'aalaha waa soo dhaweynaya su'aashaada waxaad ii sheegaysaa dalkii ugu horeeyay oo Afrikaan ah oo diyaarad lagu duqeeyo dalkii Afrikaan oo diyaarad lagu duqeeyo oo Soomaaliya hayo ku dhawaa magacaaga Cabdi Cabdullaahi baa la yiraahdaa Cabdi su'aashu waxay ku leedahay waxa sheegtaa degmo kamid ah degmooyinka Puntland oo ka kooban 3 xaraf waa degmada Ayl su'aashu waxay ku leedahay waxa sheegtaa gobol kamid ah gobolada Puntland oo shantiisa degmo ay ku yaaliin xeeb waa yaqaan gobolkaas wuxuuna ka mid yahay goboladii ka go'ay bari waana gobolka la yiraahdo Gardafuul walaal ku dhawaay maxamed xuseen bulaal dhawla maxamed oo inaan su'aal ku weydiiyo soo aragtaa walaal diyaar baa wax su'aal su'aashu waxay ku leedahay waxa sheegtaa wadanka ugu horeeyay oo Afrikaan ah oo diyaarad lagu duqeeyo wadanka ugu horeeyay Afrikaan ah oo diyaarad lagu duqeeyo waxay Soomaaliya ahayd hadana waxay ahayd degmada Taleex su'aasha kale waxay ku leedahay waxa sheegtaa gobol kamid ah gobolada Puntland oo shantiisa degmo ay ku yaaliin xeeb ama dhacaan xeeb ay ku yaalaan Soomaa waa gobolka gobolka kamid ah gobolada Puntland oo shantiisa degmo ku yaala xeeb waa Boosaaso marka degmooyinkooda see Carmaan kamid ah Carmaan xeeb waa runta arma xeeb kuma taa arma ku jirtaa waa baas de shan degmo ku taal yani ma kala wadamsay wadan shanta degmada waxay ku yaaleen xeeb waa gobol Gardafuul
degmo ka mid ah degmooyinka Puntland oo magaceedu 3 xaraf ka kooban yahay degmo ka mid ah degmooyinka Puntland oo magaceedu 3 xaraf ka kooban yahay talow ayl waxa sheegtaa ratiga geela lagu daro magaca loo yaqaan ratiga geela lagu daro waxa loo yaqaan baarqab waatay daawadayaal guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka Suways iyo su'aalaha isla markaasna aan su'aalo ku weydiinayay bulshada magaalada Garowe idinkuna su'aalaha waxaan jeclahay dadka ku xiran channelka Suways Kacayte inay halkaan ay su'aalaha iyaguna isku dayaan oo kaga soo jawaabaan waxaan ka codsanayaa inay channelka Suways Kacayte ay subscribe dhahaan isla markaasna asxaabtooda la sii wadaagaan si ay barnaamijka ula socdaan iyaguna dhinaca kaamirada waa Mawlid Fantastic aniguna waxaan Suways Kacayte inta barnaamijka xigaan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo